الله naxariistay marxuun abwaan Axmed Siciid Diiriye oo ku magac dheeraa Afguriye ayaa waxa uu dhashay sanadku markuu ahaa 1963 waxaana uu ku dhashay dalka Itoobiya gaar ahaan magaalada Diridhaba waxaana uu wax ku bartay dalka Itoobiya iyo dalka Soomaaliya waxaana uu dhalinyarnimadiisii caan ku ahaa gabayada iyo suugaanta kala duwan ee Soomaaliyeed taasoo u suurtagelisay inuu ka qayb qaato gabayada tartanada ee dhinacyada dhaqanka iyo hidaha caafimaadka oo kaga jiray kaalin door ah haddabaanu eegno abwaan Geestiir oo muddo ay saaxiib ahaayeen oo ka sheekeynaya hab dhaqanka marxuum abwaan Afguriye dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaanu ka tacsiyadeenaynaa qaamuuskii Soomaaliyeed oo qayb ka mid ay duntay ilaahay ha u naxariisto Axmed Siciid Diiriye iskoolad baan ahayn 7 baan fanka wada galay waa bari Hargeysa Diridhaba ka yimaadna Jabuuti ka soo baxay waxaan ku kulannay tiyaatarka Hargeysaad halkaas la naga qaaday imtixaanka xamar baa isaga markii dambe loo bedelay anna waa bari Hargeysa ku haray dabadeedna soo markaan soo tirsanaa waa bari dhinacaas burburkii dhacay burburkii dabadeedna Jabuuti ayuu soo wareegay 29 bilowgiisii baan boorama isku nimay annagu markaa Addis Ababa u baxnay Jabuuti buu baxay kadib haddana muddo dhammaan isku soo noqonnay Axmed Siciid naxariis Allah ka waraabiyo murtidiisa riwaayadihiisa dib baan uga warrami doonaa maanta xawaashi baanu joognaa fanaaniinta Soomaaliyeed kuwa Somaliland meel kasta ay joogaan suxufiyiinta saxaafadda dhammaanba dhaqaatiirta intii wax nala qabatay intii xanuunsanayeen caawisay intii na garab gashay intii wax na tartay dhammaanba waxa weeyaan waan u mahad celineynaa waxaana ka codsanaynaa in loo soo duceeyo abwaan Axmed Siciid runtii waa qaamuus buu ahaa qof walbana maalintiisu baxaya geeridu waa xaq lama diidayo qof walba maalintiisu dhimanaya Allah u naxariisto saaxiib baan ku ahayn fanka saaxiib baan u ahayn maartay dhalinyarnimo ahaan oo isla soo barbaarnay oo maartay aan hawl soo wada qabanay taariikhda dib baan uga warrami doonaa ilaahay ha u naxariisto dhammaanba waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed iyo fanka Soomaaliyeedna dhammaanba ilaahay samiriibana ka wada siiyo dhammaanba anoo ku hadlaya afka fanaaniinta gobolka Awdal iyo Salal waxaan u tireynaa tacsi dhammaanba bahdii uu ka baxay ee fanka meel kasta ay joogaan dal iyo dibadda Axmed Siciid oo inta Allah u naxariisto ruwaayadihii iyo suugaantii faraha badnayd ee uu qori jiray markaan soo yarkoo koobo yacni kelmadaha eray bixinta ahaa waxaan xasuustaa meelay dani kaa wadin waraabana kuu fadhiyo maansa u lahaa bay ka mid ahayd magaceeda sida imka ninkan uu sheegay qof baahan ninkii u baahda ayaa tala weyn u baahan waxay ka mid ahayd ciwaan maansa u lahaa gabayadii waxaan xasuustaa gabay uu odhan jiray kuma odhanin iimaha ku yaal waa intaa tire waxaan idhi sidaan kuwa qaanuunku kuu barayay waa gabayada iskarab dhacaa ee abwaanadu intooda badan ayna galiba karin waxyaalo badan waxaad xasuusataa adduunyadan rubuc hadhay intoodii badneed la rogay ratiga loo qalay suntaa maran raadcay sidii talaa tidhi hay rogrogin runbaa caray sheegi tidhi oo been baa tidhi in riyaaq saaka horta ma firfircooni oo walaalkay Axmed Siciid Diiriye Allah u naxariistay suugaantiisa halkan saaka kuma baarbaari karayo laakiin haddaad su'aal dib igu soo noqoteen intaasaan xasuusanahay wassalaamu calaykum saddexaas min laba caruur ayay dhaleen xaaska ugu weyn oo isaguna 12 dhalay wuxuu ka tagay 18 caruur wuxuu ku dhashay magaalada Diridhaba wallahi sanadkii weygeera qaldan iyo kilinka Soomaaliyeed Afguriye Allah u naxariistay wuxuu ahaa nin taariikhda odayaasha ka badiya nin taariikhda iyo dhaqanka Soomaalida nin aad u yaqaan buu ahaa wuxuu ahaa nin diintana aad u yaqaan Afguriye anigu intii aan haddaan Bashiir ahay intii aan fanaaniin soo maray abwaanada oo ka mid yihiin Xasan Sheekh Muumin Cali Sugulle Xuseen oo Faarax Hadraawi iyo Cabdiqays iyo kala badan ragaasi waxa raggii hore aad ugu waaweynaa hal abuurka
halabuurka markay abuurayaan labay u qaybsamaanoo ragna markaaba arrintiibuu kuu dhiibaa ragna wakhti bay ku yaro qaadataa afguriye allah u naxariista wuxuu ahaa nin ilaahay u dhib yareeyey erisamaynta wuxuu ahaa nin wuxuu sameeyo in yar oo jilicsan laga heli karin buu ahaa wuxuu ahaa hal abuur weyn oo af soomaaliga aad u yaqaana buu ahaa wuxuu ahaa nin aan iskuba dhibin markuu wax samaynayo haddaad tidhahdo waxaa ka samee sidii uu hore u sii sameeyo diyaar u ahayd ayuunbuu kuu dhiibi jiray nin aad u qaaliya buu ahaa wuxuu ahaa nin inta meelooda imika soomaalidu degto af soomaaliga lagaga hadlo aan isleeyahay maanta nin le erey ahaa ama le ta'liifaha uu yar yahay axmed ismaaciil diiriye afguriye ilaahay ha u naxariisto dadkii uu ka tegey iyo ehelkiisii iyo abwaanadii fanaaniintii iyo ummadda soomaaliyeed oo dhanna ilaahay sabir iyo iimaan ha ka siiyo ilaahay jannatalfirdowso ha geeyo waxa uu sidoo kale door muhiima ka qaatay fanka iyo suugaanta dalka Jabuuti waxaana uu sameeyay riwaayado dhowr ah iyo heeso kala duwan oo xusuus ku reebay mahadada taariikheed ee maamulka dawladnimo ee dalka Jabuuti waxaana ka mid ahaa heesaha taariikhda galay ee inta badan soo jiitay bulshada heesta ku caanbaxday wankayga cadow hanaaxin oo uu qaado fanaanka Xasan Wado وداد lagu baxay bartu wadaaga way bartu wadaaga wankani cadow hanaaxin وداد lagu baxay bartu wadaaga way bartu wadaaga وداد قريرك جوغا ورديقو وحياه البيسان انداو كويعياي ايو عدلاك شيغان وحن تاقواني جيركا وداد قريرك جوغا ورديقو وحياه البيسان انداو كويعياي ايو عدلاك شيغان سياد وعقابل الكيسة والما درنو أفايسي وعدودا وقبدادو هذا قودا واجب كاقاي واتكاقو موغن واتكاقوي 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 برود واتكاقوي سياد وعقابل الكيسة والما درنو أفايسي وعدودا وقبدادو هذا قودا واجب كاقاي واتكاقو موغن واتكاقوي 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 برد واتكاقوي heesta la magac baxday waxa raanta loo feedhayaa waa rag oo ay ku luuqeeyaan fanaaniinta dalka Jabuuti raanta loo feedhayaa waa rag waxa abarka la isugu rushaa waa rag waxa fiiqa nuurayaa waa dunida roobka kuridi waa rag waxa rogaya reeraha burburin waa rag waxa raranka nala doonaya waa rag waxa dunida roobka kuridi waa rag waxa rogaya reeraha burburin waa rag waxa raranka nala doonaya waa dhanka kale waxa iyaguna aan la soo koobi karin heesihii taariikhda galay ee uu sameeyay Allah u naxariistay marxuun abwaan Axmed Diiriye Afguriye oo bulshadu si weyn ay xasuusato balada markay hilaacdo bayaal hubkiisa qaato baanaani ay soo dhawaato ba iyo basanbaas aloosmo boqortooyadiisu lahayn bilow iyo dhamaasho loo baahdaha ciidan u baahan badbaashaha laga badbaadin baaqiga kaligii haraaya in laga baqitahay yaqiinta in lagu baqitahay hanoonka baxshaha wuxuu bixiyo waayey lahaashuu kuu u buuxo ayaa birmad laga sugaayay qof baahan qofkii u baahda iyaa tala weyn u baahan
gabagabadii marxuun abwaan axmed siciid deeriye oo ku magac dheeraa afgudhiye waxa uu ahaa hal abuur inta badan baradhaafiyey hal abuurada kale aqoonta uu leeyahay hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee Soomaalidu kaga duwan tahay qoomiyadaha ku nool bariga qaaradda Afrika awadayaal intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa taariikh nololeedkii ku saabsanaa Allah u naxariistay marxuun abwaan axmed siciid deeriye oo ku magac dheeraa afgudhiye